kitaabka qur'aanku waa dambaalkii ugu dambeeyay noolaha bani'aadamka loo soo diro wuxuuna dadku tusiyaa sida ay u noolaan lahaayeen wuxuuna tarjumaan u yahay falsafada nolosheena waa kitaab dhammaan noolaha oo dhan u damaanad qaadaya nolol wanaagsan waa kitaabka kaliya ee bani'aadamku ku hogaaminaya wadada guusha iyo farxadda waa kitaab qofka rumaysan dhiirigelin badan uu ka helayo qur'aanku sidoo kale waa kitaab noolaha bani'aadamku ku tarbiyadeynaya wanaagga iyo farxadda si kooban qur'aanku waa kitaab marjac u ah nolosha kownka oo dhan wax walbana wuxuu uga jawaabaa si aanay horay kitaab kale uga jawaabin wuxuuna bani'aadamku uga jawaabaa su'aalaha aasaasiga ah nolosheena balse waxaa nasiib daro ah inta badan dadka muslimiinta ah inaanay ku baraarugsaneyn xitaa xifdinta iyo akhrinta kitaabka qur'aanku waxay kobcisaa horumarka maskaxda iyo IQ-ga qofka haddaba si aan u bilowno muuqaalka haddii muuqaalada noocan oo kale ay ku cajabgeliyaan laag saar muuqaalkani si aan u soo badino mahadsanid qur'aanku ma aha kitaab kaliya ka hadla nolosha dambe ee aakhiro wuxuuna sidoo kale ka hadlaa nolosheena caadiga ah wuxuuna dadku fahamsiiyaa aayadaha kowniga ah ee dhulka yaala wuxuuna jawaab ka bixiyaa su'aalaha abid bani'aadamka uusan ka jawaabin xitaa horumarka tiknoolajiyada casriga ee bani'aadamku waxaysan gaarin ayuu qur'aanku jawaabo ka bixiyaa dunida ma jiro kitaab la mid ah qur'aanka oo sheegi kara xogta qur'aanku uu sheegay oo kale ama mid u dhigantaa tanina waa mid ka mid ah mucjisooyinka ugu waaweyn ee qarnigani qur'aanku qaaska uu ku yahay sidoo kale qur'aanku waa kitaab qofka rumaysadka leh daawo u ah wuxuuna u dabiibaa hab nafsi ah wuxuuna daahiriyaa ruuxda qofka wuxuuna dhiirigeliyaa qofka walwalkii walbahaar ku soo wajahay wuxuuna leeyahay qur'aanka waxaan soo dejinaynaa qur'aanka isagoo caafimaad iyo naxariis u ah mu'miniinta suuradda Israa aayadda 82 sidoo kale qur'aanku waa kitaab nolosha bani'aadamka qurxiya waxyaabaha halista ku ah bulshaduna ku bogaadiya in laga fogaado waxyaabaha qaar ee halista nolosha bani'aadamka ku ahna waa uu mamnuuca isticmaalkooda tanina waa nasteexooyinka qur'aanka iyo tarbiyada bani'aadamku uu siinayo dadka badankoodu ma ay oga qur'aanku inuu dhiso garaadka maskaxda dadka maxamed jeelaani waa neuroscientist muslim ah wuxuuna sheegayaa sababihii ugu waaweynaa ee muslimiinta qarniyadii hore ee dunida ay ugu horumareen soo saarka tiknoolajiyada caafimaadka iyo cosmologigu sirta ka dambeysa inay ahayd qur'aanka waayo qur'aanka qofkii akhriya isku daya inuu xifdiyo wuxuu dhisayaa maskaxdiisa wuxuuna horumariyaa fikirkiisa tanina waxay keenaysaa dadka qur'aanka xifdisan intooda badan waa kuwa maskaxdoodu ay aad u furfuran tahay dhagaysiga qur'aanka iyo la socodkiisu waxa uu saynistuhu sheegayaa in temporal lobe-ku ay active noqonayso temporal lobe-ku waa qayb ka mid ah maskaxda ee u dhow dhagaha qaybtanina waxay qaabilsan tahay hadalka xifdinta maqalka temporal lobe-ku oo mar walba soo jeeda waxay ka dhigan tahay in qofka muslimka maskaxdiisu ay active tahay mid active ah oo mar walba soo jeeda tanina waxa uu sheegayaa inay xiriir la leedahay muslimiintii hore in dunidu saynisku ay ku horumaraan muslimiintu waxaa dhaqan iyo caado ah in carruurtoodu ay ku barbaarayaan xifdinta iyo barashada qur'aanka iyaga oo yaryar dhab ahaantii waa nooc ka mid ah tarbiyada wanaagsan waayo ilmuhu waxaa furfurmaya maskaxdooda si degdeg ah ay wax walbana ku xifdin karaan iyaga oo yaryar